Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Qodada quruxda badan sidaa u samaysanay iyo casriyadan ayaan rabaa inaan idinla wadaago. Fadlan janaalka hadaad ku cusub tahay subscribe-ka ii saar, like-tan ii saar, iyona share gareey. Waad ku mahadsan tahay. Ugu horreyn quraacdan kariyay idima soo duubin. Waa degdeg bay ahayd, subaxniman way ahayd. Waxaan rabaa kuukarkiga wasakh ahaa inaan iska nadiifiyo. Waa ujeedaan halkaasaan gacmihii taagayaa. Waxaan rabaa shaqadan ma fududo, Ilaahay na la garab galo ilaa iyo casho inaad ila daawataan insha Allah. Ha iga tagin oo ha iga cararin oo ha ordin. Waxaan ku dhahay meeshan adiga iskale isaga baashaal. Waxaan ku dhahay anigana isoo dhiirigeliyo wax qorta ilaa waa ku baray commentiga ii soo qor. Waxaad moodaa fiidiyoyada dadka fiirsanaysan aqoon sida wax loo qoro. Wallaahi wax comment ii soo qoro waan way asxaabtayda qaaliga. Wallaahi bilaa aad baan idin jecelahay. Kor ii soo qaada dad badan waxaan arkay wallaahi luuq igu dhaawar u soco waa ka caajisin. Waxaan ku dhahay culeys ha dareemin anaga ku garab taagan. Asxaabtaas waxaan leeyahay aad u mahadsantihiin. Dadka kale si ay idinkugu soo dhiiridaan comment igu soo qora luuq waxba igu soo qorina. Luuq iyo xaggan waa isku kaymid laakiin dadka Soomaalida waxay yihiin haday laba qof maanta maasha Allah ay hadal wanaagsan kugu soo qoraan ayagan maasha Allah waxa waaye lagama sheekeyn karo waa ku soo qorayaan. Marka Ilaahay garabkeena ha galo. Waxaan ku dhahay waa kaas soo nadiifiye kor iyo hoos nadiif waaye. Bariiskeenan karsanaynaa xawaajideyn waa noo jeediin. Intaasaan rabaa inaan bariiska ku kariyo. Waxaan ku dhahay afaarahaan ay tahay la isku ogaado. Halkaas waxaan ku haystaa maceeyihii, basashii, filfishii madooweed, heelkii, qarfihii, kabsar aan soo tumay iyo xawaaji dhudhub laba nooc ah. Baradhadii aan dubanaya waa ii jeedin asxaabe. Baradhaan dubayaa. Bariiskaan shiilayaa hadartaan. Waxaan ku dhahay basbaaska sii hormariyay. Intuu bariiska biyaha uu ku jiray basbaaska iska sii hormariyay. Marka intaan iska fadhin lahaa qudaartan way ii jarneed basbaaska iska saaray. Halkaanaytan wax kale ay ku saaran. Marka waxaan idin dhahay kor ii soo qaadade la dumaro kor ii qaada dhulka igu jiidinaya kor ii qaada. Waxaa idin dhahay wallaahi bilaa maasha Allah halka aan hor dadka igu xiran oo dhan waa dad wanaagsan maasha Allah. Ilaahay baan ugu mahadcelinayaa. Waxaan ku dhahay kuwii yaa isku raaga ahaa maqash kuwaas Allah naga dhigo. Bariiskeena u jeedaan waxa u maleeyay inuu biyaha dhameys markaan fiiriyo waxaan arkay biyo badan ku jiro. Marka wallaahi maanta waxaan akhriyay sheeko qalbiga gilgilay. Wallaahi waxaan ku dhahay sheekadaas ilaa hadartaan markaas ugu soo horbaxaysa ma aqaan idinka inaa aragteen. Qofkaan arkin ma arkin anaa u sheegi doono. Qofkii arkeen uu arkayba. Jikinkaas baraf uu ka bixlaaya 3 saacadood meeshan yaala. Hadda marka waxaan is dhahay biyaha iskaga saar bas yeeli. Laba goor waxaan rabaa inaan biyo ku kariyo ayadoo waliba aan ka kala furminaan biyihii dabka saaraba. Yeelahay waqtiga igu socday waa sugi waaye. Jeexas xabada saliina ku soo daray iyo kisiro cusba ah waa kasad way inoo soo badbaday inaan ka dhigaa rabaa. Wayba biyihii waa ka dhamaan waysa ilaa markiis ana sideed ayadoo aan ku riday. Waa kaas isku dhagneed markaan ku ridaayay. Waxaan sameeyaa ayadaas noqotee marka wallaahi maasha Allah oo iska fududahay. Waa soo jarjaray inta mid u qaataa soo jarjar saasa ka soo dhigay. Waxaa la marinayaa baharaadkiisa wixii xawaaji ahaa dhana la marinayaa. Food color ku darayaa. Food color-kaas saxfaraanka kan caagan uu ka dhamaaday baryaani lagu daray xawaajkaas. Marka xawaaji caadi ah isaga shubtay caaga iska ma tuurin. Jeexas liinta ku darayaa dhanaan si uu igu yeesho. Marka macaan yar ku soo baxaya ma garatay. Jabjuma bisa ku soo daray xabad dhama isticmaalayo maadaama aan liin ku daray aan maceeyo ku daray asaaba dhanag wata jikinka iyo hilibkan dhanaan badan uma baahna waa ila aragteen. Marka asxaabe wallaahi waxaan ku dhahay wallaahi bilaa adduunyada waxaan la arkeen male. waxaan ku dhahay waxaa la yiri
nin iyo naagaa kala tagay. Markay kala tageen la wiilay dhashay naagtii wuu ka ceshtay, wuxuu yiri orod ilmihii arki maysida i dhaaf. Gabadhii markii ilmaha laga ceshtay wiil weyn oo aqli badan ku jiray, midna fulay u ahaa ayada ay dhashay, abiisu xoog uga cabsan jiray. Marka wiilkii maalin kasto meel uu aadaya, lama og meeshuu aadaya, 3 habeen iska maqnaanaya, habeenka afraad u imaanaya. Wiilkii mar waliba waa la dilayaa, eeda arxan laay aabihii qaba ku dirayso, way dhibtay wiilkii, naftay ku dhibtay. Wiilkaaga wuu maqan yahay, wiilkaa ma imaan. Mar waliba uu yimaadana soo u maqnaa, markuu yimaado aabihiis wuu garaacaya, markuu garaaco war xagee jirtay sheeg. markii la dhoobo wuxuu iska dhigaya qof suuxay. markuu suuxo uu arko oday wuxuu leeyahay wiilku waa suuxay, su'aal dambo ma weydiina. markaas wuxuu sameynayaa wax yaroo biyo ku shishwaaya, wuu iska tagaya odaygi. maalinta dambe wuxuu maqnaaday 7 habeen. 7daas habeen markuu maqnaa, ilaa markiisa waxaa la yiri wiilkaan war ma maqlaaye, hadduu yimaado kow aan ugu siinayaa. Aabii wuxuu go'aan ku gaaray inuu dilo oo kow ugu siiyo. alxamdulillaah. markaas wuxuu sameeyay ilaa amarkiisa wiilkii waa u yimid, waa la garaacay isagoo dhiig ku dhex jiro oo dhiigiisii dhex fadhiyo ayaa waxaa dhacday. walaalkiisa uu yaaban yahay, cunuga madax adag oo habeen maalin leeyahay meel aadin, oo eedada arxanka darana duqi ku diraysa. duqiina aanba marnaba kusoo dhacin cunugaaga waa oo sokor yar ku soo daray. sheekana soo dhex gashay dhanaan kuleelkan ka biinaya ma garate. qadadeen saas ay ku soo baxday. marka afaaraha kale casriyada iyo cashada fududeed idin la wadaagaya asxaabi. markaas waxaa dhacday ninkii cunugiyo dhiig ku dhex jiro oo rafaadsan oo silacsan oo nafta ka sii baxayso. aabii ilaan go'aan wuxuu ku gaaray inuu dilo kow ugu siiyo soo maaha. ayaa wuxuu wiilkani walaalkiis wuxuu arkay qol ku jiro dhiigida nafta ka sii baxayso. uu eegayaa, wuu fiiri. wiilkii ilaa amarkiisa wuu dhintay. markuu dhintay haweena wiilkii walaalkiis adduunka weeshanayay iyo eedadan dhibka badan iyo aabihii aanba fahmayninba ilmihiis ayaa waxaa dhacday. wiilkii habeenada ka mid ah asagoo jiifa wuxuu dareemay dhaxan xoog badan. wuxuu aaday walaalkiis gogoshiisa, barkinoo soo qaaday. barkintii asoo isla barkinta walaalkaa ku seexo. barkinta hoosteed wuxuu ka arkay warqadaasoo ku qorneed sida tan hadda idin la wadaagi doono. warqadaasi wadi dhiigay ahayd. marka waxaa ku qorneed walaalkaygiyo adduunyadan wehel kuma haysatid. hooyaday mar walba waxaan aad jiray hooyaday oo indhaha la codkayna aan kala garanayna u tagi jiro yiri. adduunyada qof anaga ahaynna ma haysato hooyadayna. aniga hadda waa dhintay. wuxuu yiri aniga inaan dhintay hooyaday hala wadaagin. codadkeena ma kala taqaano, waxna ma aragto, waa indhoole. u tag sida ani ugu tagi jiray ugu tag oo adigana xanaaney. balse ha u sheegi in aniga aan dhintay. midkeena inuu adduunka faarujiyo ha u sheegin. wiilkii waa ooyay. ilaan wiilku wuxuu u maqnaan jiray hooyadiisu u tagi jiro xanaaneyn jiray. cidna maysan ogeen. wuxuu yiri wax cid aad la wadaagi karto ma jirto yiri. adiga hooyada si qaas u ogow, hana u sheegin inuu midkeena adduunyada uu faarujiyay. nama arkayso yiri, codkeena ma kala garanayso. wallaahi waa calool xumo. hooyadiis daraadeeda u dhintay. isaguna waxa waaye wuu cidlooday. marka awlaad ma aragtay waxay hooyadeed ugu roon ma jirto. hooyada wax ugu roon ma jirto. eedooyin qaarkood eedo way xunta ma dhihi karaan. naftarkii eedooyin nasabaan haysta alxamdulillaah. eeda aaba qaban waxa waaye 99 waaba xaasidiin. laakiin cunugaaga walaalkiisa haddaad godobka gasho adigana beri cunugaaga kaa jari doono.
hadalka wanaagsan waa sadaqo. burkeen waa soo fidsanaynaa saanaan ku wadaa xoogaa waxaan rabaa si qurux badan inuu soo baxo. marka farsamadan aan tijaabinayaa sidoo ku soo baxo waa ila arki doontiin insha Allah. wallaahi waxaan ku dhahay xalayna fiidiyogan dare waxaan duubay maalinka Jumcaha waxaan rabay inaan cod saaro xalay oo Sabtiga ahayd. ilaa markiis gabaraan qaraabanahan ilmo yar ka gubta xoogaa aad iyo aad ugu walwalaayay. marka anigoo dhanba sas baa igu jiray. ilaahay gabar walaasha ilmaha u caafiyo. qashin ayadoo eedada ilmaha eedada ayadoo qashin banaanka ku gubayso bensiin xoog badan in dabkii ku shubtayo hal mar intuu haw dhahay eedadiina way gubatay. laba cunug yar yaroo meesha joogtayna waa gubteen. gabaraa ugu daran wajiga eber ka noqotay. digfeeray jiiftaa ilaahay ha boogdhayo. waxaan ku dhahay dabkaas markaa qashimaha gubaysaan ilmaha laga fogeeyo. ilmaha banaan gudaha la iska geliyo banaankiisa soo bixin. idinka laftirkiin bensiinka wax yar inaad ku darsataan maahan ayaa la iska badin. masiibooyinka ilaahay hana hareer mariyo. ilaahay masiibo nama tuso. ubadka Allah noo xafido. dhibaato ilaaha naga haayo. wallaahi waxaan ku dhahay markaa hooyo tahay waxa waaye inaa taxadar xoog badan inaa lahaatidaa fiican. ilmaha caafimaadkooda iyo jirida waxba kale ma ogo. waaba dabaalo. marka hooyada waxaa mas'uuliyad saaran waxaa ka mid ah inay ilmaha caafimaadkooda ay ka fikirto meeshay istaagayaan iyo meeshay fariisanayaan inta laga warhayo. ilaahay awlaada inoo xafido. waxaan ku dhahay saliida dabka soo saartay kookarka maanta dhan nadiifina mujeedin saas u wasaqeeyay. insha Allah wallaahi waxaan ku dhahay ma fududo ilmo korinta ma fududo. markaan arko hooyaday alxamdulillah hadda anagoo waliba ilmo badan dhalnaa waxaan leenahay waa daalnay. hooyooyinka ilmo badan intay dhalaan biyaha soo dhaamiyaan oo waxaan ku dhahay guriyaasha ay xaaqin lagu xaaqi jiray oo xoolihii la raaco oo caanihii la liso subxaanallah suuq laga soo adeego. waxaan ku dhahay haddana saasay tahay galbii waxay aad jireen qaraabo salaan ilaahu caafimaad taamsi ehelkii aad u xiriirin jireen qaraabadii aad u jeclaan jireen. waxaan ku dhahay iyagoo dad faraxsanay ahaayeen. wallaahi waxaan ku dhahay dhakhaatiir la aadi jirmaysan jiro way naga caafimaad badnaayeen. ilaahay meeshaas ugu gargaaraba. hadda anaga haddaan bishii 2 bilood isku xigto qof guri jooga ma jirto dhakhtar la wada aadayaa. waxaan haysana ku karadana wax ku karsanaa biyaha guriga noo yaalaan. raashinkii 2 bilood waxaan cun leena soo xareysanaa. wax naga maqan ayadoo aysan jirin. haddana waxaan noqonay bukaan socod. waxaan ku dhahay caafimaad daro laa ilaaha illa Allah ilaahu caafimaad taamna sii. dadkii Soomaaliyeed waxay noqdeen qaar xanuunsan oo isbitaal xanuun la jiif iyo qaar guriyaha ayagoo jooga xanuunsan ay kala noqdeenba. ilaahay waxaan weydiisanaynaa inuu caafimaadka noo siyaadiyo. wallaahi waxaan ku dhahay adduunyada culeys kama dhamaado. qof walba culeys hays ilaahay culeys ka dulqaado. qof walba hami iyo riyo iyo wax walba u hamuun qaba ilaahay ha siiyo. sanadkan maalmo yar ayaa ka dhiman uu dhamaanayaa. kan cusub waxaan rajeynaynaa bashbash iyo barwaaqo iyo baraar inaan ku noolaano. ilaahay waxaan weydiisanayaa ani iyo intii la mid inta hadda idaawanaysa dhammaanteen inuu hamiyeen noo rumeeyo. inuu ilaahay caafimaad taamna siiyo. inuu ilaahay wax walba qof walba meeshuu ka tabanaayo inuu ilaahay u buuxiyo. idinkana aamiinta soo qara. ilaahay baahiyaheen ilaahay ha daboolo. ilaahay dhibaatooyinkan ha nagu hareeraysa ilaahay naga qabto. ilaahay waxaan weydiisanaynaa caafimaad taam aan awlaadeen ku korsano. aan riyooyinka aan leen aan ku gaarno inuu ilaahay na siiyo. halkaa mujeedin wax yaroo sabaayad inta soo duwaan digaagtii iyo baradhay waxaas ku gelgelinaa ilmaha raba inaan siiyo. ilaan bariis bay ku qaday inaan bariis ugu celiyaan diidanaa. wax kalena waan karin waaye. burkii aan qasaan xoogaa ya sabaayad ka bixiye isbaba dhibin alxamdulillah. wax walba fudud waad ka dhigan kartaa. adeeg waad ka dhigan kartaa. qofka isagay ku xiran tahay. haddaad shaygan wax adag ka dhigto wax adag buu noqonayaa. haddaad ka dhigato wax jilicsan kuu noqonayaa. ilaahay garabkeena ha galo.